shahiid waxaa la yidhaahdaa nebiga calayh isalaatu wasalaam shahiidka qeexay waa qofka marka koobaad u dagaalamaya inay diinta ilaahay sarreyso mar labaadkana dagaalkaasi ku geeriyooda ama sababtiisa waxa weeyaan u dhinta isagoo aan cararin oo goobtii dagaalka aan ka cararin oo tawali yowma zaxf jeesasho iyo carar isagoo aan samayn qofkaasi ayaa shahiid la yidhaahdaa nebiguna calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi allahu aclamu man yuqtalu fi sabiilihi allahu aclamu man yuklamu fi sabiilih ilaahay baa oo ka daraaddii loo dilay iyo ka daraaddii loo dhaawacay waayo waa arrin qofka niyadiisa ku xidhan oo inuu ilaahay daraaddii u dagaalamayey inuu khaniimo doon ahaayo inuu qabyaalad u dagaalamayey iyo inuu geesinimo muujin ama istus u dagaalamayay inagu ma ogin ilaahay baa subxana watacaala og ka ilaahay daraaddii loo dhaawacayana ilahay baa subxana watacaala og marka shahiidul aakhira baa kaa la idhaahdaa oo axkaamu shahiid buu leeyahay adduunyada saas oo kale aakhirana haddii sifadiisu saasi ay tahay jannada ayuu gelaya waxaa kaloo jira wax loo yaqaano shahiid axkaamu shahiid aakhira leh laakiin adduunyada axkaamu shahiid aan lahayn oo shahiidka axkaamu shahiid leh fi dunya iyo fi laakhiraba lama maydhayo oo laguma tukanayo oo maryihii uu ku dhintay baa lagu aasaya hadha waxa lasoo saari doonaa iyadoo dhaawici ku yaal laakiin dhiiggii urtii dhiigga aan lahayn laakiin raaixada ama carafta miskigo kale leh kaasi waa shahiid اdunya wاlaakhira ama shahiid alaakhira dadkan kale ayuun buu la mid yahay waa la maydhaya waa lagu tukanayaa waa la kafnayaa marka shahiid alaakhira ka axkaamu shahiid leh fi laakhira waxaa kamida gabadha iyadoo dhiiggii dhalmada la dhimata ama uurkii tusaalahaan ku dhimata qofka caloosha u dhinta qofka dhisme ku dumay sida dee dhulgirirada dhacay oo kale ku dhinta qofka saas oo kale qarqooma kuwaasaa nebigu shahiidu ku sheegay waxaa kaloo shahiida qofka isagoo naftiisa waxa weeyaan difaacayo oo cid dooneysa dee inay isaga disho ka difaacaya ama maalkiisa difaacaya ama cirdigiisa iyo sharaftiisa difaacaya dhinta nebigu calayh isalaatu wasalaam iyagana shahiid buu ku sheegay man qutila duuna damihi fahuwa shahiid waman qutila duuna maali fahuwa shahiid waman qutila duuna cirdihi fahuwa shahiid laakiin arrinta ku saabsan waxa weeyaan isdifaacistu axkaam badan bay leedahay oo culimadu ay kutubta fiqiga ay ku sheegaan kutubta fiqiga shaaficiyada iyo kutubta kaleba axkaamtaasi oo ay kamid tahay qofku arrinta ugu sahlan inuu isku difaaco oo ilaahay baa yihi idfac bilatii hiya axsan oo qofkii doonaya tusaale ahaan inuu ku dilo hadduu kelmad kaaga tegayo inaad kelmaddaa u dhaaftaa kuma banaana hadduu kaaga tegayo tusaale ahaan dhirbaaxo inaad ul ku dhufataa kuma banaana haddii uu ul kaaga tegayo inaad bud ku dhufataa kuma banaana hadduu bud kaaga tegayo inaad seef ku dhufato ama inaad xabad ku dhufato hadduu kaaga tegayo inaad dhaawacdo inaad dishaa kuma banaana haddii aad ka carari karayso oo taa aad kaga badbaadi karaysid inaad saas oo kale dishaa kuma banaana maaha macnaheedu mar hadduu aniga i doonayo inaan dilaa way ii banaan tahay maaha haddii qofku aanu isagu dilba aanu u socon dee qof naftaadii aad ka difaacayso isagu noqon maayo oo laba qof oo dee muslimiin haddii arrin ay isku qabtaan qofku markiiba odhan maayo waan difaacu nafsi baan ku jiraayo qofkaasi waan dilaya qofka muslimka ee lagu soo socdo iyo kan kusoo socdaa labaduba xurmay leeyihin labadaba dhiigooda shareecadu waa ilaalisay kan la doonaya in la dilo inuu isdifaacaabaa loo baneeyey kan waxa weeyaan dhibaatada doonaya laftiisana in iyadoo dhibaatadiisa si fudud looga badbaadi karo in dhib weyn isagana loo geysto oo la dilo ama dhaawac weyn loo geysto shareecadu ma ogolo waana wax kutubta ku qoran weeye arrinta ku saabsan markaa jihaadka iyo shahiidka iyo magacyada casriga inaynu joogno aadka loogu ciyaaray bay kamid yihin marka qaarkood waxaa arkaysa dad gaalo laleeyahay waa shahiid ama kuwa mudaharaad ku dhintay oo lagu odhanayo dimuqraadiyadu mudaharaadayey oo lagu odhanayo waa shahiid la odhanayo waxaad arkaysaa qof qabyaalad u dagaalamayey soomaaliduna waaba kasii xag jiraanoo iyagoo reeray isu laynaya oo qabyaalad u dagaalamaya ayay dagaaladooda magaca jihaad huwinayaan amaba se ay qofkii ku dhintay odhanaya waa shahiid si magac fiican loo huwiyo dagaalkiioo dadku ay u jeclaadaan oo mid aakhiro wax lagu helayo
dad fara badan waxa weeyaan ay ugu qaataan xaqiiqaduna waxa weeye shay walba waa in miisaanka shareecada la saaro oo dagaalka qofkani muxuu u dagaalamayaana waa la eegayaa dagaalkiisu waa noocee labadaaba shareecadu way eegaysaa kadibna dagaalkii xukun bay siinaysaa shareecadu arrimaha noocaasana hadii jeeraale waa in dadka ahlucilmiga looga dambeeyo oo iyaga qofku uu weydiiyo idhaahdo bal dagaalka noocaasiya ka waran qofka ku dhintaa ma shahiidba ma jihaad baa lagu tilmaami karaa horena magacaa soomaalidu way u kufsadeen ilaa imikana waxay muuqataa inay kufsanayaan oo laba kasta oo meel isku dilaya mid waliba odhanaya dagaalkayga dhinaciisu jihaad ka yahay ka xaggiisa ku dhintaana jannadu tagaya ka dhinaca kale ku dhintaana waa ahlu naar marka arrimaha noocaasina maaha arrimo dadku iyagu ay say doonaan ay u dhigi karaan waa arrimo shareecadu ay ka hadashay oo ay tahay shareecada in loola noqdo si ilaahayna dadka ahlu cilmiga la weydiiyo fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun